soo martay saddex deegaan saddexdaa deegaan oo ah deegaankii ugu horeeyay koonfurta toga ka xiga oo leeyahay waqdari oo atoga magaaladu ka dhaansato ayay ka asaasantay wixii ka horeeyay 1943 way ka soo guurtay waxa timi geedshay xageeda qarsay oo magaalada geeskeeda koonfureed xilligaas oo ah xilligii Ingiriisku oo dawladda Ingiriisku ee gumaysan jirtay wadankan ay timi geedigii saddexaad 1943 halkan hadda degan tahay ayay rasmiga ku noqotay ee deegaanka ku noqotay ayaa la digi magaalada Laascaanood waxayna ahayd 1943 markii gurigii ugu horeeyay ee binaa laga jeexo degsiimadeedu sidaas ayay ku bilaabatay saddexda heer bayna soo martay dawladda Ingiriisku markaa waxay ka dhistay guriyo cusbitaalo guriyo dhulkii dawladda sida cusbitaalka hadda ka dhisan xabsiga dawladda hoose guriyo noocaas oo fara badan wixii asaar dawladeed lahayd maxkamaddii ayay ka dhistay Laascaanood wax horumar oo dawladii isu bedelay ama kuwii rayidka ahaa ama kuwii militariga ahaa wax horumar oo degma ahaan laamiga dhexmara magaalada sidoo dhisay aan hayn ka weyn oo ay ka heshayna ma jirin 1990 markii dawladda dhexe burburtay ee dadkii cid waliba deegaamadii ay u dhalatay ay u qaxday ayuu ahaa horumarkeeda ugu baaxad weyn dhaqaaluhu wuxuu ku tiirsan yahay oo kowka dekad male seelad weyn oo xoolaad male wuxuu ku tiirsan yahay xoolaha nool buu ku tiirsan yahay hilibkooda caanahooda subagooda xoolaha ayuu ku tiirsan yahay iyo wixii dismis oo ganacsato ah oo ama shirkadaha ah ama maxaa ku raad baqaarada labada qaybood buu ku tiirsan yahay dalka beero wuu jiraa inkastoo aanay helin mudnaantooda waxay leedahay beero fara badan hadda oo sanadadan ugu dambeeyay deegaanka hareerihiisa ah beero fiican baa laga beeray oo qudradu ka timaada oo dhaqaale ka soo gala magaaladu waa de sayidku wuxuu kacay daraawista ay jabtay 1920 bay ahayd laakiin waxa ka mid ahayd goobihii uu deganaa taariikh ahaan magaalada bariga Laascaanood buurta sayidku waxa weeye buurtii ay fuuli jirtay deganeed ilaalada sayidku waxaana sababay waxa meel istiraatiijiya oo buuraley oo togogle buurtaas ay u saaraan jirtay iyadoo aan magaalo ahayn barta ilaaladu dhalinyaro oo ilaa 20 kilomitir bariga ka sii xigana wuxuu ka dhistay daar oo waxay xarunta ciidanka kale u fadhiya labaad guud ahaan Soomaaliya burburka siyaasaddu uu saameeyay wuxuu ku saameeyay siyaasaddu waxay isu bedeshay qabaa'il waxay noqotay kursigii tacliinta lagu doonin jiray in reer lagu doonto tanna waxay kaga duwantoo gaar kaga tahay laba maamul ayaa xareeraha ka xiga labada maamul saameyn weyn baa murankoodii iyo jiita isqabsigoodii uu ku sameeyay oo dib u dhaca ee degmada iyo deegaamadeeda
waddankan u dhashay waxaan ugu baaqayaa guud ahaan inay u soo jeestaan horumarka dalkooda iyo tacabkiisa waayo cid waliba waxa aad qabsatay kugu qiimaynaysa maamuladana waxaan ugu baaqaynaa dhibka halkan ka jira ee dib u dhaca ah ee waddankan saameeyay ummadda ku nool inay ka waantoobaan oo ay gartaan dadkani inuu yahay dad Soomaaliya oo xuquuq adduunka ku leh xilli ay gaadhana lagala xisaabtami doono ilaa haddana dawladaha Ingiriis Mareykan waxa ay ku colaadiyaan gobolkan u haystaan inuu yahay gobolkii uu ka soo jeeday ee ka bilaabmay halgankii daraawiisheed